السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دمانتين ولكن محمود لاag waxaan maanta rabaa halkan inaan kusoo gudbiyo dhacdo cajiib ah oo uu sameeyay aktarka caanka ah Aamir Khan oo ka yaabisay warbaahinta India iyo midda caalamka. Waxayna u dhacday sidan: xilli ay ahayd casar gaabadkii ayuu Aamir Khan u diray taraag weyn oo ay ka buuxaan kaartoomo yaryar oo ay mid kasta ku jirto kiilo bur ah magaalada Delhi si uu ugu qaybiyo dadka masaakiinta ah ee meesha joogay. Waxaa safkii soo galay dad badan, balse markii ay arkeen waxa meesha ku jiro yaridiisa way ka holeeleen goobtii ayaga oo u arkay inay tahay waqti lumis. Waxaana isugu soo haray intii baahida dhabta ah ka haysay, wayna qaateen kiilogii burka ahaa ayaga oo ku qanacsan. Arrinta ku noqotay lama filaanka dadka masaakiinta ayaa ahayd in markii ay guriga tageen ee ay fureen kaartoonkii kiilooga burka ah uu ku jiray si ay u karsadaan, ay ku dhex arkeen lacag dhan 15,000 oo rubi oo ku dhex jirto. Arrintaas ayay aad ugu farxeen masaakiintii. Maasha Allah, waa xeelad cajiib ah oo dadka baahida dhabta ka tahay lagu gaarsiin karo wixii loogu talagalay iyadoo la isticmaalayo firfircoonida caynkan oo kaleeta ah. Aamir Khan ayaa caan ku ah inuu sameeyo xeeladaha noocan oo kale ah marka uu rabo inuu gaarsiiyo caawimaad dadka tabaalaysan. Mana ahan mid ku faafiya baraha bulshada waxa uu ummadda siiyo ee deeq ah, bal marar badan lama ogaado inuu yahay isaga waxa deeqdaas dadka soo gaarsiiyay. Maasha Allah, waa arrin la amaanay in qofka sadaqada baxsanayo uusan kor u qaadin. Aayad Quraan ah ayuu Eebbe weyne ku leeyahay: haddii waxa aad bixinaysaan aad caddaysaan waa sax, balse haddii aad qarisaan oo aad siisaan dadka baahan, taas ayaa idin wanaagsan. Waxaan ka fahmaynaa dhacdadan in waxa aan bixinayno uusan inaga noqonin inaan dad tusayno, ee ay noqoto mid Ilaahay dartiis aan u bixinayno, oo xataa bidixdeenu aynan ogaanin marka ay midigteenu wax bixinayso. Waa walaalkiin Maxamuud Laag oo idin leh inta aan ku kulmi doono mowduuca xiga hadduu Eebbe awoodda la ogolaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.